kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo axad aan idiin soo gudbinayno waa barnaamijkii subaxnimo waa barnaamijkii koobaad haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa telefishinka Iran ayaa waxa uu sheegay aroortii saakay in uu dhintay aayatullaahigii dalkaasi xukumayay Ali Khamenei 36 sano ayuu xukunka hayay aayatullaahi wuxuu qabtay xukunka 1986 isagoo bedelay aayatullaahigii ka horeeyay muddadaas wuxuu ka shaqeeyay Iran inuu dib u dhis ku sameeyo hagaajiyo ciidankooda iyo waxooda iyo nidaamkooda dawlad islaamiya ka dhiso macnaha nidaam jamhuuriya islaamiya la yiraahdo ka sameeyay haddaba hawl weyn ayuu halka ka qabtaa la leeyahay haddaba marka hore aan idin tuso geeridiisa sida loogu dhawaaqay telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu sheegay Iran waxa ay sheegtay inuu dhintay Khamenei waxaana ay dawladdu ku dhawaaqday 40 maalmood oo markaa baroor diiq in loo sameynayo aayatullaahi marka caadiyan aayatullaahiga markuu dhinto maxaa dhacaya dastuurka Iran maxaa ku qoran aayatullaahiga markuu dhinto ma aayatullaahi kale ayaa hore ka qabsanaya meesha xukumaya nidaamka la maraya ee dastuuriga ah muxuu yahay haddaba nidaamka dastuuriga waxa waaye lagu leeyahay aayatullaahiga markuu dhinto 3 nin ayaa awoodda wadanka maamulaysa madaxweynaha iyo ninka garsoorka ugu sareeya iyo nin culimada diinta ka socda oo wadaadada waaweyn kamid ah 3daas ayaa xukunka sii haynaya waxay diyaarinayaan inay qabtaan doorashada musharaxa la dooranayo musharaxa aayatullaahiga yaa dooranaya aayatullaahiga ma dadka shacabka loo bandhigayaa soo dooranaya ma dawladda ayaa dooranaysa sidee loo dooranayaa aayatullaahiga dhowr iyo 80 culimo ah ayaa laysu keenaya oo faqiih ah la leeyahay macnaha culimada oo shiicada ugu waaweyn ayaa isku imaanaya 83 meelaas markay isu yimaadaan waxay dooranayaan nin caalim ah oo faqiih ah oo dalka hogaamiya oo aayatullaahi shaqadiisii qabta marka nidaamka u degsan Iran marka waa nidaam noocaas dad way jiraan asaga uu tilmaamay uu yiri dadkan hebel iyo hebel shaqadan way qaban karaan laakiin dad oo la sii magacaabayo la og yahay oo xilka qabanaya ma aha waa in processkan ama shaqadaas la qabto oo la soo maro ayaa loo baahan yahay waayahay aayatullaahigu marka ma qof hogaamiya Iran kaliya ahaa muxuu ahaa Al Jazeera waxay leedahay aayatullaahiga dada waxay u aaminsan yihiin sheekhoodii ay diinta ku xiranaayeen inuu yahay khaliifkoodii inuu yahay oo macnaha ay diinta uga dayanayeen oo ay ku xirnaayeen inuu yahay caqiida ahaanay u aaminsan yihiin dadkaas aayatullaahiga waana shiico meelo kala duwan joogta waxaa ka mid ah kuwa Lubnaan jooga shiicada oo joogta Yemen kuwa adduunka meel kasta jooga Ciraaq kuwa jooga waxay u aaminsan yihiin caqiida ahaan sheekhoodii waay wataqaana sheekha xirta iskala oo sheekha ay dadku ku xiran yihiin caqiida ahaan ay u rumaysan yihiin oo macnaha sheekhoodii oo la taabtay ciyaar ma ah way xukunkana wuu haya Iran sheekh noocaasana wuu ahaa oo Iran kaliya dadka ku xiran Iran kaliya ma ahayn oo waxa ku xirnaa shiica fara badan oo adduunka joogta waaye qodobka isaguna waa fahamna u malaynaa
marka waxa leeyahay Trump muxuu ka faa'iidayaa dilka Ayatollah. Trump marka wuxuu leeyahay Ayatollahiga ayuu ahaa caqabad, laakiin waxa leeyahay labay mid noqon maalmaha soo socda la kala ogaanaya baashu inay Trump ku roganto oo wixii shiica ahaa adduunka jooga oo dhan ay kacaan oo markaa nimankii hanjabaya Ayatollahiga khadul ahmar oo noo yahay lahaa shiicadii Lubnaan joogtay kuwii Yemen joogay wixii oo dhan inay kacaan oo meesha Ayatollahigiiba iqarsan uu noqdo oo sheekadu ay isku walaaqanto oo cirka tagto, ama qamaarka inuu ku faa'iido Trump oo uu markaa ku guulaysto xiisadu inay iska degto oo dadka Ayatollahiga nacab ay bataan hoosaas isagoo kasii hor dhacaya. marka Trump ayuu wuxuu leeyahay xataa ciidamada ilaalada kacaanka Iran qaarkood waxay doonayaan inaysan dagaalamin oo dagaal maadaama Ayatollahiga dhintay ay leeyihiin oo fiirsada. marka geemaa la ciyaaraya Ayatollahiga marka goormuu dhintay, siduusu u dhintay, iyaduna warbixina laga qoray. Al-Jazeera waxay leedahay wakaaladda wararka ee Faris ee dalka Iran ayaa waxay leedahay Ayatollahiga waxaa la dilay subaxii xafiiskiisa ku yaala koonfurta Tehran. xafiiskiisu joogay maba baqaayaba ninkan godow galay iyo waa la xareeyay iyo meel aamin ma jirta dheen xafiiskiisu fariistay kula. xafiiskiisa markuu fariistay gantaalihii ugu horeeyay weerarka oo diyaaradaha Mareykanku ay soo tuureen ayaa lala helay. diyaaradaha Mareykanka xataa waxa lagu leeyahay hawada Iran maba soo gelinba. diyaaraduhu awooday u leeyihiin ayagoo meel kale jooga inay gantaalo soo tuuraan oo ay garaacaan. marka ninkan xafiiskiisa lagu dilay. yaa kaloo la dilay oo qoyskiisa ka mid ah. marka waxa leeyahay marka waxaa la dilay gabaru isagu dhalay Ayatollahiga, ninkii qabay gabadhaas iyo gabaray dhashay waa group moogtay, iyo wiilka isaga uu dhalay xaaskiisa oo la joogtay way dhimatay. wiilka ma xaaskiisa, laakiin waxaa dhintay gabadhiisa, ninkii qabay iyo gabar yar oo ay dhashay oo awoow u ahaa. iyaguna halkaas ayay ku dhinteen leeyahay oo ay ku baxeen. laakiin wiilkii isaga uu dhalay wuu badbaaday. madaxweynaha wadanka waxba ma gaarin. ujeedada Ayatollahiga in la dilo ayuu qorshuhu ahaa. waayadan oo dhan waxaa la gaadayay Ayatollahiga in laga takhaluso. waayahay natiijada iyo falcelinta ka dhalan karta Ayatollahiga marka laga tago Iiraaniyiinta, Shiicada, marka laga tago iyo dadka Shiicada caalamka maxaa ka dhalan kara? dadka falanqeeyaashu waxay leeyihiin waa looga digay dhowr jeer inuusan Ayatollahiga taaban. dowlado waaweyn uga digay. maxaa looga digayaa? khataro badana ka dhalan kara aagaas. maxaa ka mid ah haddii Iran ay burburto maxaa dhacaya? Iran hadday burburto waxaa dhacaya qaxooti fara badan oo malaayiin dad ayaa khaliijka ku baxaya. wadankii wuu kala go'go'ayaa. dhibaatooyin iyo mushkilado iyo dagaalo iyo wax walba bilaabmaya. dowladihii dariska la ahaa Iran oo dhan qaatibilaa joogayaan. waxa meesha ka dhici doona waa marka haddii burburto waa dowladda oo macnaha sida Ayatollahiga hadduu burburay dowladdu hadday burburto, laakiin ma u badna 90% systemka kacaanka islaamiga waa jiraa leeyahay. waana isdooran doonaan, cid kastana waa la bedeli doonaa. ciddii dhimata Trump asaa isdaalinayay leeyihiin. laakiin wax walba waxaa la yidhi moogtahay shar ku tasho khayr wax kaama dhibee dhahaan Soomaalida. marka haddii marka burburo maxaa dhacaya? dhibaato weyn oo intaa ka daran iyo fawdo iyo mushkiladeeda ayaa dhici doonta, iyo dalkaasoo dhibaato nin walba meel qabsado rafaad dhaco ayaa halkaa dhici doona. marka hawshaasu marka halkaas iyaduna
waxyaabaha cusub ee aayatullaahiga ka soo kordhay ayay ka mid tahay. waayahay ciidanka marka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa war soo saaray geerida kadib markii aroortii saakay la sheegay geerida ninka inuu dhintay ayay ciidanka soo saareen. ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga waxay yiraahdeen mabdii wixii uu aaminsanaa wixii uu nagula dardaarmay aan fulinayna waana u aargudaynaa aayatullaahi mar walba wuu dhiman lahaa. afayeenka u hadlay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan asaguna wuxuu leeyahay mar walba aayatullaahi wuu dhiman lahaa. oday weynu 90kii ku dhawaa iska odaya waayeelo ahaa waxa dhimanaa odaga, laakiin waxaa nagu ballan ah inaan madax fara badan annaguna aan uga argud oo ay ugu horeeyaan sahyuuniyadda iyo waxa kan nimankan israa'iiliyiinta meesha jooga ayaan annaguna ka argudan doonaa. dagaalkuna ma joogsan doono inta aan ka argudanayn. waxaana ugu baaqaynaa mujtamaca taageerayay ee ku xirnaa caqiida ahaan aayatullaahigana inay iyaguna u istaagaan aargudidiisa.